السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد شيخ مودي waxaan idin leeyahay khiyaarteedii isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan idin hayaa gabar walaashayda oo waxyaalaha dumarka isku qurxiyaan oo adiga dhibaato weyn ay u geysteen intii qurux aad raadihay gabadha Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay waxyaalaha aad marsaysaan iska fiiri wallahi baan ku sheegay ma lagu heeraa arkay caloosha ay qortay ha ahaato lugaheeda markaan arkay caloosha ay qorto wallahi baan ku sheegay waxaan idin leeyahay gabadha Soomaaliyeed ee quruxda raadihaysid foolxumaha u tagin waa la yaab videogaasaan rabaa inaan dil wadaago akhyaarteedii daawasho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمان walaalahayga qaaliga ah gabadhan lugaheeda waa arkaysiin sida uu qalaf dhacayaan waxa wiila wuxuu isku daray yani wiilash dhan inay iga xumaadaan ma rabi laakiin waxa idinka codsanayaa inaad ka fiirsatiin dadka waxa uu hagaajinaysiin insha Allah waxyaabaha loo hagaajinay sawirka ka soo qaadatay meesha la soo saara kulay uu is yaqaana wiilkaas gabadha walaasha ah jirkeeda ha ku cayaarin waa arkaysiin inay ida dhan wada garaaf naqatay xanuun gubad naqatay qolofka fuqooyso insha Allah taala nabrahaas wax ka qalajiyo aan siinaya iyo wax qoloftaasna si tartiib uga tirtiro oo yani maqaarkeeda hore u soo celiyo hadii ila yiraahdo marka waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah gabadhaas de wax saliid xitaa ay marsato xanuun ay dareemayso kareemka daxan fafi wax ka dareentid ii sheegay qalad waa inaa gacanteeda laakiin waa soo nadiifiyey waa xanfafayaan way xanuunayaan xanuunay la seexayso gabadhaas arkaysiin waan wiil Soomaaliyeed xasaas u galay I love anaga inaan quruxsanaano cadaano hadaan ay gabdhaha Soomaaliyeed laakiin mayo wada khibrad leedihiin nidaayana haleynine hadreemaysaa inuu qabow yahay mase qabow dareemaya ma sha Allah sa arkaysiin soo dhaweyn nabaray ahayd marka daawo qalafkaas ka fiiqdo iyo daawo oo nabrahaas baabi'iso meeshaana maqaarkeedii hore oo nadiif ah u soo celiso oo adkaysa yani wallahi baan ku sheegay ma lugaheeda lan waxay noqdeen qoloftii ay dhacayso waxaan la leeyahay wallahi dad aragto waa diyaawaysaa horta meeshaan waxaa saaran baakooyin oo daawo ay ku wada jiraan oo kala nooc ah waa mid 1 2 3 4 5 6 7 8 daawo ay la isku daray ay marsat ay lugaheeda saas ku noqdeen waxaan leeyahay qurux oo ilaahay ku dhali walaashayda qaaliga ahaydee quruxda aad raadihaysa kale maxay tahay haddaba waa artaan wala quruxda aad raadihaysa ay khasaaro dhaxda dalaq qatari lugahaada waa sidii masti oo kale ay xub dhacsaayaan wallahi waa ana cajiiba ku leh noot hagaajiyay insha Allah taala saamaqlaysiin waxa daamursad waxay dhaad xanfaf iyo xanuun aan ka qaaday laakiin hadda qabow xitaa waa xanuujinayeen kulay waxay dhaada iyada waa sheegay aniga wiilkiisa iiga laakiin aan dhahay maya mar waa inaan qof bariiskiisa carro uga shubo laakiin waa u digayaa 9 mar aan dhahay hal wiila hal qof hal magac shoobinay oo hal magac la u badan dhibaatada gabdhaha u geysahayaan marka waxaan idin leeyahay insha Allah taala taxadiro walaalahayga qaaliga ah hadii aadan fahansanayn waxa isku hagaajiso iyada ka codso waxa dhahdaa walaal maxaa soo ka daraa ma taqaana ayada ku dheh laakiin hadaa dhahdo adduun oo dhan wax fiiqaya isku daraya dadka maqaarada isku mid ma ahan tan kale boomatooyinka maqaarka fiiqan waxa u daran waxyaabaha oo diya new light oo kalentood fast action ma fiicno dadka Afrikaanka zaidka loogu talagalay inay isku fiiqaan marka anaga Soomaaliya hadaan ahayd manihiin dadkaas maqaarka adag leh naga ilaaliya aad u maasantiin sawirka geeska saaran waayan xal dhihi jiray sawirka geeska saaran waay daawada ay marsatay marka gacanteeda xitaa garaafa ku taalo waa idin tusinaa insha Allah oo nabra ah caadi nabra u noqotay waa inta soo gashay gabadhaas lugeeda gacmaha okay hatta gacmihii ay waxay noqotay nabro mafaati daawadaas oo isku dardar dhibaatada ay leedahay waad aragtaan waxaan leeyahay walaalahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay daawooyinka noocaas iska ilaaliya hadda gabartaas gacmaha iyo wixii marsatay iyo lugaha ay marsatay bal wajiga ay marsan lahayd maxaa dhici lahayd hadda oo lugihiya tuxbaasan oo ka waji bal soo noqolahay waxaan leeyahay khiyaarteedii intaas harweynaan la socodsiiyo كل فرينتان وصعدت قبلها الصومالية هذا اللي ولا عليها لو روح إلى هاي دليل
ma fahanti daawan waxay qurxis mal inay wax ku dhiisho maahan inay wax qurxis lagama yaabo waxaan leeyahay ka feejignaada waa idin salaamaa intaa idinka salaamaa waxaan leeyahay isku soo noqod wanaagsan idinkoo caafimaad qaba iyaan oo caafimaad qabo